طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يالكسو دوالا برنامج خاصة ونقوم عدرني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. برنامج كاس ومعنيسو يهي ميسن كتدبرين أو أيسن روحين قرآن كإلهي مثل قلوب تودا أي قفل سارنتهاي. إن شاء الله تعالى برنامج كان وحا أن نقصو قادم دونا أجزاء القرآن ككريم كوكومي هي صدم كأه ayaynu kusoo qaadan doonaa xalaqad walba ama qayb walba waxaan kusoo qaadanaynaa insha Allah juz muayyan oo ajzaada quraanka kamid ah. sidaan la socono quraanka kariimka ah waa manbaca ama meesha asaaska u ah shariicada islaamka, muslimiintuna ay u noqdaan mar walba oo ay rabaan diintooda inay bartaan kitaabka Ilaahay iyo waxay u noqdaan sunnada nabiga ee saxiixa sallallahu alayhi wasallam, ha noqoto xagga ahkaamta ama xagga aqeedada ama xagga umuurta siyaasadda ama dhaqaalaha ama akhlaaqda iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee nolosha bini'aadamku uu ku tacalluqo. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu soo dejiyay quraanka kariimka in la akhriyo oo lagu tadabburo oo la dhuuxo macaanidiisa laguna camal falo. Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. oo macnaheedu yahay waa kitaab aan kugu soo dejinay Nabi Maxamedow waxaana kugu soo waana kitaab barakaysan oo mubaarak ah, qiraa'adiisa barakaysan, amalkiisa barakaysan. waxaan kugu soo dejinay si aayadihiisa ay u dhuuxaan oo ay ugu noqnoqdaan ugu tadabburaan. waxaana taa ka faa'iideysanayo Ilaahay kuwa u saaxiibka laabaha wax weeleeya ulul albaab kuwa la yiraahdo. Ilaahay saasoo kale wuxuu yiri afala yatadabbaruna alqur'an أي أو معناه يهي هل لا تدبروا القرآن كما يكون تدبرا آيات سورة النساء سورة محمد بإله وكشيء أو معناه وترترسين نلقصيني ما عرفتين الكبورينيو إن القرآن كأنه روحنا معانا ديسا إنه كلاس وبحنا أحكام إنه أيصنوا ضعفين سي هلوا وصنوا ضعفين. نبينا صلى الله عليه وسلم آد أي نوجو ترترسيي أو نوجو بوري قرآن كبرشديس أو أمانة يدك حفاظة يدك قرآن كإلهي كل رقم يدك برته. waxaa sharaf ugu filan quraanka iyo dadka barta ama bara xadiiska saxiixa ah inuu yiri khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. ilaahayna subhanahu wa ta'ala xadiis sahih muslim wariyo wuxuu ku yiri ilaahay inna allaha ta'ala yarfa'u bi hadha alkalam aqwaman wa yad'u bihi akharin. oo macnaheedu yahay quraanka kan qolana ilaahay sare ayuu qaada waa kuwa inta barta oo ku dhaqma oo ku amal fala, qolana hoos buu u dhigaa kuwii ma aragtay markay ogaadeen khayrkiisa kadib ku dhaqmi waayay oo iska tuuray min waraa'i dhuhurihi. kuwaasna hoos baa Ilaahay ugu dhiga sharaftooda iyo maqaamkooda iyo dhan walba hoos baa Ilaahay ugu dhiga. haddaba annagu aayadahaas quraanka iyo xadiiska nabiga aan soo sheegnay ka duulayna ba insha Allah ta'ala waxaynu dul istaagi doonaa si kooban insha Allah ta'ala ajzaada quraanka soddonka ah si kooban juz walba waxa uu koobayo ama uu ka hadlayo mawduucaadka waaweyn ee juzka uu ka hadlayo. maadaama barnaamijka aan ugu talagalnay xalaqo yar oo aan ka badnayn 10 daqiiqo ayaanu insha Allah ta'ala aan dul istaagi doonaa. barnaamijka waxaan ugu talagalnay inuu baxo habeen kasta oo habeenada Ramadaanka inuu TV-yada Soomaalida uu ka baxo, laakiin Ramadaan iyo qeyrkeedba qofka muslimka uu anfacaya insha Allah ta'ala. dariiqada aan raaci doono insha Allah ta'ala barnaamijka waxaan noqon doonaa xalaqad walba ama qayb walba waxaan ku soo gudbin doonaa hal juz ayaan ku soo gudbinaynaa. waxaan ka hadli doonaa juzkaas suuradaha ku jira meesha ay ka bilaabmayaan iyo meesha ay ku dhamaanayaan insha Allah ta'ala. suuradaha magacooda ayaan sheegaynaa. waxaan dhahaynaa juzkan wuxuu ka bilaabmayaa suurada hebla ilaa suurada hebla ayaan dhigi doonaa. markaas kadib ayaan suurad walba bilowgeeda waxaan sheegaynaa
macaanida guud ee ku jira iyo ahdaafta suuraddu iyo waxyaalaha ay rabto inay dadka muslimiinta ay usoo gudbiso ka dhaadhiciso ama bini aadamka guud ahaan ay usoo gudbiso marka hadafka barnaamijkan laga leeyahayna waxa weeye si uu noqdo mid mukhtasara oo la dul istaago qur'aanka ajzaadiisaan hore usoo sheegnay mawduucyadiisa waaweyn si qofka muslimka oo raba inuu qur'aanka xifdiyo ama ku dhaqmo uu ugu tadabburo oo ay u noqoto dariiqa u sahasha insha allahu tacaala si qofka muslimka uu la noolaado qur'aanka maaragtay markuu akhrinayo juskan uu fahmo macaanida guud juskan uu ka hadli doono marka waxaan ku bilaabaynaa insha allahu tacaala waqtiga ayaan rabnaa inaan kasbano xalaqadan juska koowaad aljus alawal min alqur'aan alkariim juskaas wuxuu ka bilowdaa suuratu alfaatixa ilaa waxa uu socdaa 141 suuratu albaqara mawaadiicda ugu muhiimsan oo ka hadlay haddaan soo khulaasayno suuratu alfaatixa oo lagu magacaabo ummul kitaab hooyadii kitaabka ayaa lagu magacaabaa لأن القرآن كأي لغو فرتي ومعاني القرآن كجرته ضمبا إياذا كليجيت كجرته ولذلك وحا كلون مقاعيدا كمية سورة الفاتحة لأنه مفتاح القرآن كويه وحين علماء دهين وحا كل احجر سورة الفاتحة لما معاني القرآن كلون كجرته أيا كل احجر سورة الفاتحة سورة دان مركي علماء قالوا في رسالين صدح ريمود أي كو ريجيسا أو مارك سلديقو أنك أوهرية أي كو ريجيس وحويه عقيدة العقيدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حكى هذا شيء إلهي أسماء ديسة إلهي أمان تيسة إلهي صفات كيسة إلهي إنه يهي كان يوم الحساب كسوه أنت وحكى الله سورتك هذا الشيء قضبك الله هذا شحوي العبادة إياك نعبد وإياك نستعين إلهي كلية يا عبادة مضن كلجس أيانا كلمة معركتي إن لو يديستايت هاي وحكى الله هذا شيء وقيبت ستحال سورتك هذا شحوي منهج الحياة منهج الحياة وحوي طريقة النرشة بني آدمكو أي هانيسو إن قفكو إلهي مر والبا ويديستو إنو إساقا وهانونيو ونقضو كي كدلب إلهي إنو صحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسن إلهي كدين كوي بمي كلا طريقة صحدة سورة كلا أو جزء قيب كميدة وياهي وسورة البقرة سامو رأسو الشيخني إلى بقول أي كوي أفرتن آيات وسورة البقرة كميدة سورة البقرة سأقولنا هي وسورة أقول القرآن الكريم على الإطلاق سورة أقول الروية وأنا سورة رنتي لنعيا بدن حق التشريع أما قوانين دين الإسلام كي نظام يدي آد دكسي سيما قوانين نظام كمسلمين تأيوب هيهين نرشوا حق برشادة سورة وحا أي كبلاوتي حروف القرآن كليا حروف المقطعة ألف لام ميم وعلماء أيدهن وتنبيه لو تنبيهين يبشر كإعجاز كذا يصير أيسن أودين إن إلي ما لهم القرآن كانوا كلام حي العربتي فصاحة لهاي اللغة العربية اللغة دول كسود القرآن كأيا لقول التحدي إن إلي ما تعصوا كلام ولذلك علماء وحدها إلى الله أعلم بمراده هيدهن مركز كتب سورة وحي آدو ديراتي قيب تظهر قيب كميد أمركي تذكي مؤمنين كافرين وقيبسي قول صدحاد أو خير درن أو منافقين ليراهدو وحين السورة aad ugu nuxnuxsatay maxaa yeelay shidadooda iyo dhibkooda ayaa ka daran gaalada kale caadiga ah laano waxa way wala wajiilayaal waxay qarsanayaan wax ay maaragtay urkooda waxa ku jiray wax afka ka dhahayaan waana mudadabiino marna waxay aadayaan gaalada marna muslimiinta ay ku dhex jiraan suuradu waxa ay munaafiqiinta ay ka sheegtay laba tusaale ay u soo qaadatay biyo ama maaragtay iyo tusaale kale dab ay u soo qaadatay مثلا إلهي وحي مثلهم كواس كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وحوي وتلمامها سبليين وكوا دقاء أودن وكوين دالا مركلا إلهي وحي إسلاعيدك وحكتا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين سورة وحا أي سي آل فهفاسا أي هذا الشيء قصة نبي الله آدم عليه السلام زوجتي سي إلهي إنه بني آدم كانوا أبوري إنه مستخلفين في الأرض إن الخلافة يقولك أي كانوا غضان ويقول أي ماركتي إن يقولك عميران أي يقولك أي أقومان قيادة ماركتي خلقي كردان ماركتي أي كفاية الإنسان إلهي يقولك كانوا وحكوا شرودان يقولوا أبوري
وأنا أول قصة أو ذكرت في القرآن بعلماء قصة أورس القرآن كل شيء مركي لقى صوب بلابه حق ما عرفتي مسلسل كقرآن كمان حق النزول كمان مرك سورة فاتحة بقرة ساعة الله صعود قصة أورسي أما شيء كذا أورس أو شيء كوين كقرآن كإلهي ونوش يا سبحانه وتعالى جزء كواد وحو كلو كهد لي مركي سورة البقرة يكسو هذا الشيء قصة نبي الله آدم iyo xawaa iyo qisadii dhex martay aadam iyo maaragtay ibliis waxay kaloo ka hadashay oo aad suurada ugu dheeraatay reer bani israa'iil oo ah yahuuda bishaklin akhas khaasatan maaragtay nimanka yahuuda ah iyo mowqifkooda ay ka taagnaayeen qur'aanka iyo rusushii ilaahay guud ahaan khaasatan nabigeena nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sida ay in badan ay isugu dayeen in ay lugooyaan sallallahu alayhi wasallam waxay kaloo ay suuradu ay reer bani israa'iil ka sheegtay qisada caanka ay suuradu magaca ka soo qaadatay qisatu al-baqara oo ku tusaysa madax adeygooda iyo tacanudkooda iyo nabiga ilaahay sida u dhibeen mar ay leeyihiin ma hiya ma lawnuha muxuu isay tahay ma mid dhulka fashaa ma mid maaragtay haday iska samayn lahayn marka horeba arinku ilaahay waa u sahal lahaa taas macnaheedu waxa way qisadaas culumadu waxay dhaheen wax quraanka loogu keenay ودقنين لو دقيو إن أحكامت إلهي أن أقبلنه وأين مرن أين ككينين محايا لي أحكامت إلهي دينت إلهي مرن لكن قسوة القلب أي كنتا إلهي وحو قتل مامي إني قلوب تودو أي معركة نجح أو كلايته بل هي أشد بإلهي يري محايا دقحانت قاربة إلهي عبسين سلاد الدلع قاربة معركتي بيا كصوبحان وحلوش جزء كوري جزء كواد أو كلا أرنتي مسجد الحرام كيسير لورد سي إلهي إنه صدر نبي الله آدم على نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول كيس إسماعيل إن بيت كأيتاجه ما إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى لا يجاري تلك أمة قد خلت وحكتيرا أو جزء رنتي أن كفايسنا تربية الأبناء إن لو وضع إلى آخر قف نفط أي كتيرته محايا نبي الله إبراهيم إلى آخر لحظة أي مارك لدر دارمي يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وهلك لا يقاتئين تربية المهن لوضوه أن لقد حتى أمرك قود إلى آخر لحظة معاني داس أيام كسكو بكرنا جود أهان جزء كوالي القرآن وحيالي كهذا إلهي وحكبرنا سبحانه وتعالى ونقدر يكون كتدبر القرآن الكريم كأو كل رقمه أو أخرياء إنه نقدر والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.